بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka horeysa waxaan salaamayaa dhammaan dhageystayaashannada dhowra dhageystayaashannada meel kasta oo ay caalamka ka joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel kasta ha noqoto badda guudkeeda iyo bariga guudkiisa meel kasta ha noqoto marka labaad waxaan jeclaan lahaa inta aynaan barnaamijkeena guda gelin maanta idamka ilaahay inaan bal taariikhda iyo xilliga iyo waxa afka qalaad lagu yiraahdo locationka ama sabada inta baynaan meel naga saaro maanta taariikhdu waxay dulooganaysaa 12 bishii November 2019 maalintuna waxay hoosta ka xariiqday talaada saacaduna waxay soo xangagaabatay ilaa shalayba waxay inshaaraysaa ama ay xamaanta dul dhigatay 3 galabnimo oo hal daqiiqo dhiman aniga waxa la yiraahdaa amiin saxane haaraan abwaandhiirane dhaka weyne iga leexo iyo wixii la mid ah farsamada waxa jooga injineer maxamed ibraahim karaama oo innaba caadi ahayn maantana sidii u soo labistay aan ka bayaabayba wuxuu ku mashquulsan yahay kaamirada isweydaartooyinka xadhkaha xididada cinjirka ee saxambaaratada qaybiyaha bogsiyaha iyo beeqaamiyaha isla markaana wuxuu kolba geesu eriyaa doolilamooda faradaaliyahana aad uu isticmaalaya soo awaamiir kala duwan u siiyo kaydiyaha isnuujeeyaasha caburyaha iyo codnaxiyaasha hagaag isku soo wada duub hagaag barnaamijkeena maanta maxaa la yiraahdaa barnaamijkeena waxa la yiraahdaa IIU program waa Indhacadays International University jaamacadeeni aad wada garanayseen ee Soomaaliya aan anigu ka furay bishii March ayaa maanta shahaado bixinaysa hal shahaada la bixinayaa maanta shahaadadana waxa la siinayaa madaxweynaheenii hore ee aad u soo shaqeeyay waa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Allah xafide oo ka qalin jabiyay qaybta la yiraahdo wallahi thumma wallahi department of Indhacadays Sheekh Shariif oo aan geednaba ugu soo gaban adeega ummadda u qabtay isla markaana wuxuu sameeyay waxa la yiraahdo jumping over waa from al-Quran to the president waa very big gap balguri afka qalaad waxa weeyaan noqo macal Quraan ka bacdina uga sii bood madaxweyne qaran Sheekh Shariif waxaan leeyahay thank you for your commitment you worked hard because you were working for your people you were working for your community you were working for your country Sheikh Sharif Sheikh Ahmed the former president of Somali government and the former teacher of Holy Quran school small school in near Bal'at thank you Sheikh Sharif Today, Sheikh Sharif is very equivalent to have a very great certificate for himself in order for the next generations to identify Sheikh Sharif from the other people. Sheikh Sharif, waa geesi ku hanjabay dawladda la soo doortay ee la yiraahdo nabad iyo nolol inuu xabad kaga saari doono magaalada Muqdisho isagoo ka qalin jabiyay Sheekh Shariif jaamacadda Indhacadays qaybta la yiraahdo wallahi thumma wallahi department Sheekh Shariif ma taqaanid warning baan leenahay warning attention libaax haduu ka fakado waxa la yiraahdaa national parkiga ama meesha xayawaanka lagu xanaaneeyo libaax haduu dhaco dadka waa loo digaa oo waxa la libaax ba fakadayo la isilaaliyo waa wareey waxaanu leenahay dadka Soomaaliyeed war Sheekh Shariif baa dhaartay hal is jirooy war carruurta la soo xareeyo waa wareey waayahay laba qaybood marka barnaamijkeenu ka kooban yahay IIU jaamacaddu way og tahay dadkeeda way la socotaa 24 saac marka dadka jaamacadda eeg waxa la yiri digaagtu ilmaha aan iraahdee digaagtu mindida lagu gowrici lugaheeda kula soo baxda eeg digaagadu mindida lagu gowrici lugaheeda kula soo baxda Sheekh Shariif inuu jaamacadda IIU yahay the Somali population doesn't know may ogeyn but he
Somadan garan dadii sheegayaan laba qaybood ka kooban yahay haddaba eeg si aynu waqtigaana isaga qaadin qaybteena labaad baynu u gudbaynaa oo ku saabsan warar xasaasi ah oo ka jira dalka Soomaaliya dalkii oo cidla ah miyaad maqasheen dalkii madaxweyne joogto ra'iisul wasaarow gudoomiyihii baarlamaanka madaxweynihiiyow waa wareey wasiirkii amnigow kii dhakaweynow kii gaashaandhigow war dalkii ciidama joogto gabadh yar oo la yiraahdo laygu yiri gabadh yar oo iyadoo indhacadayska iska abaan u malay وزارة السبورت كم ياهي يا بدنا نلقي شيء وايه هذا بطي بالقيتين شيخ شريف أنا هذا الله خليه قول لي اللي بيقول صادر صو الشهادة كوجو صو ديبو سك هلا والسلام عليكم شيخ شريف وعليكم السلام يا مدير مدحويني the former president of Somalia and the former teacher of a small school Quran near Balad thank you مدير مدحويني هذا الله عدكو هذا شيء دراد أدو أنا مالذي قدام بيجي تدكو عاد بوقع مكاجين هذا وحنا كارمنا مثلا مدحوينه جامعة AIU أنا وحنا هاي the founder of the Indicadis International University. My university is very well known all over the world and you are a member of them member of it هذا أفكار إسكو شيء أنا تذكر من كل شيء لها إن هذا العديس تانو كم شيء أنا هذا الشيء كليه وحنا كارب عن مدن مدحوينه الله أكو حفظه الله أكو حفظه مدحوينه وحنا كارب اللي بقول لي صادر وشهادة كوجي صادر بين العديس كا هؤلاء بدن بقية اللي هي مدن مدحوينه ما تصنع أي الله أكو حفظه شيخ شريف شيخ أحمد مدحوينه هو رئيس دولة الصومالية أي أنا حب وين وقارئ AIU University thank you Hello guy. وريا اللي هي مسلمة. ياك صدري. شيخ شريف هاي صدري. شيخ شريف مدتك كوي استاجوا عجاه طول صار بكويل. يا الحين وصلي صار. عجاهن أديكم كم صارنا كرسي سارية. كرسي ليني ورياه. إسرائيل متى؟ نكر متى غنا؟ سفيان. تعذر بالخلط كوي سماينا يو. نكل ويني. بالقرنا يا حرنا بلاي عشت طول شيء صاريو. سما خلطنا. وناديكوا خلطنتها وانا دخل حنت عدتك الواقع قاد حصارني كرسي سارنتها هذا خلطنتها الواقع إيه كذي هذه قال ياك صدري شيخ شريف ما لبدي ندي صدري وشهادة دوم بنا مش هذه إن عديس كيجي سوق هذه ركترك واحد من سجاد كبرتين سجاد مرمية هم هنا اللي عند كرسي قلوب بين نص أنا جاي بس هذا كرسي سارنتها كرسي سارنتها أظن هذا كل بس هذا كرسي سارنتها كرسي سارنتها سفيع عفيري ولا بس اسكهوبي سجاد الله الله يحير سوى أنا وحنا مثلا عجاه هنا أنا جاي دول صارتين لكن ضي إذا كأيض ما هي الشيخ شريف وهي وحكيه لي ضل كده النابو عجاه صاري هلا السلام عليكم مدن مدحويني لبدا ويل ماذا صدري adiga magaca anigu magaca anigu magacaygu garanaya asaa garanaya wuxuu leeyahay garanaya adigana magaca yaasiin waa ninka soo dirsato yaasiin maada soo diray labada nin kursigiiba mid dhinac agta ka saaray hawsha ma isla ogeydeen mudane madaxweyne waxaan moodaynaa hawsha iyagu wataan haddaad isla ogeydeen caga saarkan waxba dhib male waa iska saburaynaa waa iska dulqaadanaynaa waaye bal dibiga dhaqaaqa shahaadaan hadda kugu soo dhibaa soo maaha waaye war dibiga dhaqaaqa laba nin oo suuxsani dibiga dhaqaaqa meeshaada ku saarnaataan war iga dhaqaaqa shahaadaana idiin dhiibayay kaaleyaa tegine halkan saxiix waxaad ku qoraysaa sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore Soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka indhacadayska ee adduunka halkan waxaad ku qortaa sheekh shariif sheekh axmed ahna madaxweynihii hore Soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenka indhacadayska dunida ku qor midna wuxuu sawiray tog soo rogmaday tog biyo ah kana wuxuu sawiray twin towerski barigii labadii guri ee Mareykanka dhaadheeraa 11 September loo bixiyay waxaan ma 11 September baa guriga dhaadheeraa aan cilmi waa ma garanay waayahay adigu yani ha wax doonta ba ha noqotee u geeya waxaad ku leeyahay oranaysaa fariyar baan idin farayaa
waxaad leedahay mudane madaxweyne hadal aan fiirsi loo odhan iyo caano aan fiiq loo cabi labadaba waa lagu saxdaa intaa kaliya adiga gaarsi maxaad odhan hadal aan fiirsi loo odhan iyo caano aan fiiq loo cabi labadaba waa lagu saxdaa adiguna waxaad u geynaysaa maamaha kale waxaad leedahay mudane madaxweyne raktarkii wuxuuna soo faray baad odhanaysaa raktarkii wuxuuna soo faray waa dal waa burburoo dib u soo kabanaaye malaka hadalkaygu dhegeysa adigu waa dal waa burburoo dib u soo kabanaaye boogihii la daweeyey inta aan ka dadaalo waryaynaan damqin boogta iyo raktarkii yiri maxaad odhanaysaa waa dal waa burburoo dib u soo kabanaaye boogihii la daweeyey inta aan ka dadaalo waryaynaan damqin boogta intaa ku dhaha garabkiina laa galo arday dadkana maartay ruuxaad aragtaanba cagaha dusha ka saara waa shaqadiina waryaa allihii alla yahay oo muslima daawadayaal dhegaystayaal ilaahay idamkii inta haddaan kaga gudubno qaybtii labaad ee barnaamijkeenna ayaynu maanta gelaynaa maanta waa talaado bisha November waa 12 saacaduna waxay xamaanta u sii guranaysaa 3:15 ilaahay idamkii waa yahay dalka Soomaaliya waa cidla maanta wax madaxoo joogtaa ma jiro dhammaan madaxdii way maqan tahay hasaate waxa in la xusan mudan bal hadeega madaxweynihii dalka Soomaaliya waa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu Kenya tagay ee international Jomo Kenyatta dhakaweyne markuu ka degay uu soo dhaweeyay wasiirka gaadiidka been haddaan sheegayo de caalamka ma waxba ku kala qarsoon illa waxa la sameeyo waxa la yiraahdo globalization madaxweynihii wasiirka gaadiidka soo dhaweeyay hadday idinka roontahay ra'iisul wasaarihi iyo wasiirkii gaashaandhiga iyo kii amniga iyo kii koolada iyo wasiirkii nacdayska intuba Faransiiska ay aadeen intaan halka kaga baxo gudoomiyaha baarlamaanka uu maqan yahay oo xagu jira hilib daqla laga soo goynayaa baa la yiri isagana jarmalka hilib daqla laga soo goynayaa wasiirra ayaguna maqan saddex wasiiro oo laga soo bixinayo dhigta cayayaan ka galay iyagana laga soo saarayo waayahay oo muddo dadaalaysay foodana iskula jirtay guradana iskula jirtay xalay ayay dooratay Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday oo ahaan jiray xogayaha arrimaha dibadda mar dhawaana Asmara laga dhigay xogayaha guud ee ururka Oganalaf waa wareey oo Oganalaf soo hanka kaabsatay alla maxay rafaad soo mareen waa wareey nin Oganalaf jawaankan ku jira dusha laga calaamadin jiray bari dusha yaa laga calaamadin jiray wariyaahe warmalows baa ku jira jawaanka maxaa ku jira kabareed nin oo Oganalaf ay ku jireen xagee laga dhiibaya Hargeysa xagee laga dhiibaya Garowe xagee laga dhiibaya Boosaaso taariikhdu waa shay tigtigan oo talaabsada tiiri adag tiriga bixiya waa tilmaan qaran tiin bira sidii taangiga waa sibraar tolan tartiib qoon u furay iyo la waa ruux tafaafula iyada tigaadiso naflaa way tukubisaa tawaad iyo khad bay leedahay looma taagelo hadaad mooday taariikhda intaad waxa doonta aad samayso inaad hadana goordhow aad waxa doonta ku hadli walay ka tahay taariikhdu diiwaan bay leedahay taangina way cid furi karta mal oo Oganalaf wixii lagu sameeyay waa looga laakiin inna ma'a al-usri yusra way ka baxday Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maaday ayay dooratay Oganalaf waxaana tartami doona isaga iyo nin la yiraahdo Mustafa Aktar oo bariyaan anigu ma qaanday isku ma fiicneen Mustafa war horta Mustafa maxaan kula dagaalay wariyaahe Mustafa Aktar maxaan kula dagaalay horta arrinkan la dagaalayna markale ka wareegniyo anoo sheegaysa Allah aan gulanaaniyo waaya barnaamijkeeni Indha Cadays International University maanta intaasaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkan oo kala inta aynu ku kulmi doono aan idinka ka tagayaa nabadgelyo waxba oran maayo lacag bad sanani iga tagaan nimanka xishoonaya